بسم الله الرحمن الرحيم إلهي مهدي waxaa farxad noo ah ka wasaarad ahaan inaan caaw dhex joogno hoolka qalinjibinta jaamacadda Eelo ee ku yaala controlka looga baxo dhanka Hargeysa kaasi oo saacadaasi ay diyaar ku tahay inaan bari ka furanto carwada shaqo abuurka qaranka oo sanadkiiba hal mar ay qabato wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoysku sanadkan oo inuu hoolkan ka dhici doono waxaan dhammaan bulshooyinka reer Somaliland bulshooyinka gobolka Awdal bulshooyinka gaar ahaan degmada Boorama dhalinyarada ardayda jaamacadaha sanadkan qalin jibinaysa ardaydii hore dhalinyaradii hore u qalin jibisay jaamacadaha aanu ku baaqaynaa ugu weysiinaynaa bari 8:00 subaxnimo inay carwadu iyada oo freeya bilaa tigida xor qofku yahay ay si rasmi ah uga furmi doonto hoolka jaamacadda Eelo ee qalinjibinta ee ku yaala dhanka controlka looga baxo dhanka Hargeysa runtii waxa carwada ku dhan ku dhawaad kontor shirkadood oo waliba shirkadihii waaweynaa ee ka bilaamiyay inay hayaan 100 shaqaale iyo wax ka badan ku dhawaad sidaas oo kale Britola ay kaga dhawaaqi doonaan halkan fursado shaqo abuur fursado shaqo gelin iyo fursado shaqo carbin dhamaantood dhalinyaradu waxaan ugu baaqaynaa inay soo qaataan CV-yadoodii u gaarka ahaa ay ku qornaayeen background-ka waxaanan isku fasixi doonaa loo shaqeeyaha iyo shaqo doonku inay halkani ku kulmaan face to face sidoo kale waxay halkani bari kala socon doonaan iyo sahan dambe carwadu 2 cisho socon doonta panel discussions sidoo kale khubradii waaweyneed ee uu kamid yahay Dr. Bailey ayaa lectures halkan ka jeedin doona waxaana bari carwada si rasmi ah u furi doona madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland iyo xubnaha golaha wasiirada oo badankood caaw magaalada ku soo hoydeen taasi oo aan rajaynayno ujeedadeenu tahay ka qaran ahaan in fursad shaqo abuur shaqo carbin shaqo gelin dhamaanteedba ay halkani ay ka helaan gaar ahaan bulshooyinka reer Boorama waa bishaaro waa waxtar weyn oo qaranku u keenay waxaan idinku rajaynaynaa Britola inaad halkan hoolka soo camirtaan information iyo xogta halkan taalana aad ka qaadataan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh